kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo kala shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah Sambaloolsho ammaane beelaha gaarsiiyay sanada ciidan iyadoo dagaal culus uu ka socdo gobolka Hiiraan ku saabsan qorshaha looga horeynayo saldhigga ugu weyn ee kooxda argagixisada Al-Shabaab Shabeellada Dhexe qodobadaas iyo kuwa kale intaas ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socdo wararka iyo warbixinada halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena xildhibaan Sambaloolsho ammaanay beelaha shalay toole soo gaarsiiyay sanada ciidan bulshada magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa shalay toole gaarsiiyay gurmad sanad ah sida raashin iyo sanad ciidan waxayna u direen ciidamada xoogga iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ee Al-Shabaab kula jira dagaalka gobolka Hiiraan gargaarkan waxaa la gaarsiiyay Maxas iyo Yasoomane waxaana lagu wareejiyay gudoomiye Cali Jees iyo xildhibaan Cabdullaahi Sambaloolsho warbaahinta la hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay dadka degan magaalooyinka ee gurmadka garab istaagga u muujiyay isagoo ku ammaanay siday mar hore isaga difaaceen kooxda argagixisada Al-Shabaab waxay fasaad ku haysay deegaanka marka aan ka xoreyna waxaa noo daayay roobab mahiigaan ah oo aan ka nasannay dhulka ay ku hareen weli roob kama diin awaariijta si wada jir ah ayaan uga xoreynaynaa dhammaan gobolada dalka yaan loo kala hadhin ayuu yidhi xildhibaan Sambaloolshe waxa uu sheegay gurmadka uga imanaya magaalooyinka Matabaan Guriceel Dhuusamareeb ay si dhaba u qaadan doonaan abaalka beesha degta magaalooyinkaasi aysan dagaal dambe uga bedeli doonin hadduu dadku deris ah waxunbay isu qabtaan maanta dadka noo soo gurmaday ee reer Galmudug wixii hore u dhaxmaray xalay dhale ha laga noqdo ayuu yidhi waxaana leenahay hal mowqif dalkuna wada jirka iyo wada noolaanshaha ayuu ku wanaagsan yahay ayuu yidhi xildhibaan Sambaloolshe ayaa intaasi ku sii daray waxaad tihiin dadkii bilaabay inay Al-Shabaab iska dhiciyaan idinkoona dowlad iyo amisom gacan ka helaynin dhulkiina ayaa ugu nabad badan dalka hooya ayaad u tihiin halganka ayuu yidhi Sambaloolsho ka hadlaya dagaalada iyo dadka garab istaagay haatana madaxweynaha Hirshabeelle oo hogaaminaya howlgalka gobolka Shabeellada Dhexe looga xoreynayo kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay shaaciyay inay qorsheynayaan qabsashada saldhigga ugu weyn ee kooxda argagixisada madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa sidoo kale sheegay inay dhowaan isku furi doonaan furimaha dagaalka ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan si ay u qabsadaan degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee argagixisadu ku leeyihiin gobolka ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanada ayuu tilmaamay inay haatan joogaan deegaanka Biyacadde ayna uga sii gudbayaan Mirtaqwo kadibna ay uga sii tallaabi doonaan Ceel Baraf iyo Ceel Dheere halkaasi oo ay ka galayaan Aadan Yabaal sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ku sugan Hiiraan ay iyaguna xadka ka soo tallaabi doonaan si Al-Shabaab nolosha loogu qabto oo aysan ka baxsanin isagoo xusay inay gacanta ku hayaan xubno shabaab ah oo howlgallo lagu qabtay si kastaba degmada Aadan Yabaal ayaa ah saldhigga ugu weyn ee kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo halka ay ka soo abaabulaan duulaanka ay ka geystaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe